kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Cabdicasiis Siyaad waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee telefishinka Kulmiye xaruntiisa dhexe ee gobolka Waqooyi Bari ee magaalada Gaarisa qodobada aan caawa warka idinkugu haynana waxa kamid ah barasaabka ismaamulka Machakos oo walaac ka muujiyay takoor cunsurinimo oo ka jira dalka Shiinaha iyo sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO oo ka dayrinaysa xanuunka coronavirus Imaaraadka Carabta oo sidoo kale tana deeq caafimaad gaarsiisay Soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan warkeena habeenimo an oo wanaagsan markale daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka aad maqlayseen oo faahfaahsan aan ku bilaabay barasaabka ismaamulka Machakos ayaa waxa uu walaac ka muujiyay takoorka cunsurinimo ee lagula dhaqamayo dadka Afrikaanka ah ee Kenyaankuba ay ka mid yihiin ee dalkaasi Shiinaha gudoomiyaha ismaamulka Machakos Dr. Alfred Mutua ayaa walaac ka muujiyay takoor uu sheegay inuu cunsurinimo ku saleysan yahay oo ka jira dalka Shiinaha Master Mutua ayaa waxa wax laga xumaado oo nasiib darro ah ku tilmaamay in takoor lagula kaco dadka Afrikaanka ah oo ay Kenyaan ka mid yihiin waxa uu ku nuuxnuusaday in ay khasab tahay in dawladda ay arrinkani sida ugu haboon uga falceliso barasaabka ayaa intaasi ku daray in cudurka COVID-19 uu ka soo bilowday Shiinaha saameynna uu ku yeeshay caalamka sidaasi awgeedna la doonayo in dhammaan dadka uu soo ritay si siman oo ay bini'aadanimo ku dheehan tahay loola dhaqmo dhanka kale dawladda dhexe ayuu u soo jeediyay in ay go'aan degdeg ah qaadato oo ay gudaha wadanka Shiinaha kaga soo daadgureynayso muwaadiniinta u dhashay dalkani Kenya hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo magaceeda WHO ayaa waxay ka dayrinaysaa xanuunka coronavirus oo ay sheegtay in uu ku sii faafayo dalal badan oo caalamka ka mid ah hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadka uu soo ritay xanuunka safmarka ah ee coronavirus ee adduunka oo dhan warbixintani ayaa waxa lagu sheegay in dad gaaraya 1,900,000 oo ruux oo ku nool meelo kala duwan oo daafaha dunida oo hadda hayo xanuunkani dilaaga ah ee coronavirus WHO ayaa waxay sheegtay in bishan Abriil ay dad badan xanuunkani qaadeen dalal badanna uu gaaray isla markaasina ay hay'addu walaaca ugu badan ka qabto in cudurkani uu wali si xawli ah ku sii faafayo tirada dadka u geeriyooday ayaa gaartay 119,500 adduunka oo dhan waxaana ka bogsaday dad gaaraya 450,000 oo ruuxa dadka ugu badan ayaa waxay ku geeriyoodeen dalka Mareykanka waxaana xanuunkani u geeriyooday in ka badan 23,000 oo ruuxa magaalooyinka dalalka ugu badan ee u geeriyooday xanuunkani coronavirus ayaa waxa ay kala yihiin New York oo Mareykanka ku taala waxaana ku geeriyooday 10,000 oo qof sida ka muuqata tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay haatanna Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay deeq caafimaad oo iskugu jirta daawooyin iyo agab kale oo looga hortago caabuqa coronavirus waxa ay ugu deeqday dawladda Soomaaliya diyaarad sida gurmad caafimaad ayaa maanta waxay ka soo degtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho taasi oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta dawladda Imaaraadka Carabta ayaa gargaar caafimaad ugu deeqday dawladda federaalka Soomaaliya waxaana gargaarkaasi ku jira qalabka caafimaadka iyo daawo iyo agab kale oo looga hortago cudurka halista ah ee coronavirus wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa Imaaraadka kala wareegay qalabkaasi muhiimka ah ee loogu deeqay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona uu ugu mahadceliyay dawladdaasi Soomaaliya ayaa xilligani waxa ka jira cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay dad fara badan haatanna caalamka intiisa kale tiradii ugu badnayd oo maxaabiis ah oo gaaraysa 45,000
oo laga sii deyni doono dalkaasi Turkiga xilli madaxweyne Erdogan oo xukuumadda u gudbiyay in maxaabiista xabsiyada laga sii daayo sababo la xiriira faafitaanka xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Turkiga ayaa isku raacay qorshe ay xukuumaddu gudbisay oo ogolaanaya in maxaabiista ugu badan laga sii daayo xabsiyada dalkaasi si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. qorshahani oo uu baarlamaanka horgeeyay madaxweyne Erdogan ayaa waxaa xabsiyada laga sii deyni doonaa 45,000 oo maxbuus kuwaasi oo dambiyo kala duwan loo haysto. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Turkiga Sureya Saadi ayaa sheegay in xildhibaanadu si buuxda u taageereen qorshahani oo uu sheegay in uu xal u yahay ka hortagga khatarta xanuunka coronavirus oo uu adduunka dhan faraba'an ku hayo. wasiirka cadaaladda Turkiga Abdulhamid ayaa sheegay in fulinta wajiga koowaad ee maxaabiista lagu sii deyn doono ay dhawaan bilaabani doonto. maxaabiista ugu badan ee la sii deynayo waa kuwii la xirxiray wixii ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay sanadii 2016. guud ahaan daawadayaal warkii habeenimo kala socoteen telefishinka caalamiga ah ee Kulmiye TV xaruntiisa dhexe ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waa naga intaas warka waxaa idinla socodsiinayay halkan si toos ah idinkaga daadihinayaan waa Cabdicasiis Siyaada aniga iyo bahda farsamada oo isku duwanba waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal isma dhaafno sidaas iyo amaana Allah.